بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أيها الأحبة، waxaan jeclay inaan idin xasuusiyo inaad ka mid tihiin dunida dadka ugu qanisan, laakiin nicmada markaad arki weydo waa markay ugu daran tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa oo ina baray ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim. ilaahay wuxuu ina baray inaynu weydiisanno jidka quman oo ah jidkii kuwii uu u nicmeeyey ee ahaa min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin, kuwii dadka ilaahay ka doortay aadamaha hormoodkooda ahaa. jidkoodii baynu haynaa. waxaa ilaahay kitaabka inoogu tilmaamayaa diinta tani inay tahay nicmo aada u weyn. tusaale ahaan fii suurati naxl oo culimmadu ay ku tilmaamaan suurati nicam, suuradda ilaahay subxaanahu wa tacaala galladuhu ina siiyey uu ku sheeganayo. ilaahay wuxuu ku bilaabayaa nicmooyin tiro badan oo ay u horeyso nicmat alwaxy, oo ay ku xigto inuu cirka iyo dhulka iyo waxoo dhan isagoo abuuray, oo ay ku xigto inuu bini aadamka abuuray, oo ay ku xigto inuu xoole inoo abuuray, oo ay ku xigto dameeriya fardiya wax la fuulay in alla inoo sameeyey, oo ay ku xigto cirka in roob ilaahay ka keeno, oo ay ku xigto universka ama kownkan siduu u dhisan oo dhan. badda wuxuu nicmo dhigay. waxaasoo nimcaa inta ilaahay tiriyo ayuu wuxuu leeyahy afaman yakhluqu kaman laa yakhluq afalaa tadakkaruun wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. ilaahay wuxuu tilmaamayaa allaha wax abuuray iyo miyay siman yihiin kaan waxba abuurini. haddaa ilaahay nicmadiisa tirisaan ma koobaysaan baa ilaahay leeyahy. ilaahayna waa ghafuuru raxiim. aayaadkan aan dul maray ama guudka ka tilmaamay waxaan uga dan leeyahay nimcooyinkaa ilaahay markuu tirinayay wuxuu ugu horraysiiyey huwa aladii yunazilu malaa'ikata biاlruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadih an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun. ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu malaa'ig soo dejiyey waxyi uu u soo dhiibay si dadka ay ugu degaan. waxay culammadu yidhaahdaan nicmo oo dhan waxa loogu horraysiiyey nicmatulislaam, diintu inay nicmo tahay. dee waana ka ilaahay qur-aan ku tilmaamaya alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina. iyadoo carafo soo degtay oo maalin taa weyne muslimiintu ay isu yimaadaan soo degtay oo maalin jimcaa soo degtay ayaa ilaahay wuxuu leeyahy maanta waxaan idin dhammaystiray diinkiinnii. akmaltu lakum diinakum, waa idin dhammaystiray. waxaan kaloo idin dhammaystiray baa ilaahay leeyahay nicmadaydii oo diinkana. waxaan kaloo raalli idinka noqday baa ilaahay leeyahy islaamnimadu inay diin idiin noqoto. ayuha alaxiba, nicmada intaa leeg intaynu dareemaynaa. wadkuruu nicmat allahi calaykum wamaa anzala calaykum min alkitaab waalxikma yaciidukum bih. waxaa xustaan baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala ilaahay nicmadiisii iyo waxa uu idiin soo dejiyey ee kitaab iyo xikmad ah. ilaahay markuu muslimiinta u gallad sheeganayay wuxuu leeyahy laqad manna allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim. ilaahay wuxuu ugu manno sheeganayaa waxa uu galladiisa uu muslimiinta siiye ku tilmaamayaa in ilaahay rasuul ka soo dhex saaray. intaynu nicmadaa dareensannay mise waxaynu isu haysannaa dad foqoro ah oon waxba haysanin, oo dunidu ka lacag badan tahay oo ka xoolo badan tahay oo ka daara badan tahay. daarahan iyo waxaana arkaysaan oo dhammi waa tegayaan. dunidan aynu aragno way baaba'aysaa. waxaa soo hadhaya waa qofku identityga rasmiga uu leeyahay. xabaasha markaad gashay cidina ku weydiin mayso maxaad xoolo ka timi iyo maxaad daara lahayd. identitygaaga lagu weydiinaya waxa weeyaan
man rabbuk waman nabiyuk wamaa diinuk baa lagu weydiinayaa islaamnimadaadii baa lagu weydiinayaa sida awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wassalaam ilaahay wuxuu ka baryayey inaan diintiisa dhibi kaga dhicin rabbanaa laa tajcal musiibatana fii diinina ilaahu aan balaaya nagaga dhicin diintayada waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayaa dadkii raasikhiinta ahaa waalraasikhuun fi lcilm ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa baryadoodu inay ahayd rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma innaka anta alwahaab ilaahay ow qalbiyadayada ha weecinin intaanu diinta fahamnay kadib yacni waa nimcadii ugu weyneyd ay haysteen ba ilaahay waxay weydiisanayaan rabbi u sugo waa nimco u qofku wax walba siisto qur-aanka maalan qisaska ku qoran wax ka mid a haddaan tilmaamo ilaahay wuxuu tilmaamayaa fircawn oo qooqay oo kibray oo si uu muuse iyo nebi haaruun uu u jabiyo soo ururiyey aqoon-yahankiisii uu u arkayey cilmiga sixirka inay dhammeeyeen aqoon-yahankaasi markay fircawn la socdeen waxay ku yidhaaheen a inna lanaa la ajran in kunna naxnu alghaalibiin wax ajar ma leenahay haddaanu ka badinna ninka kan haa buu yidhi muqarabiinta ka mid yacnii boqorkaa dunidoo dhan sheeganaya leh mulku misra iyo waxeeda oo dhan ana iska leh ayaa wuxuu leeyahay dadka muqarabiintayda aba ku biiraysaa dhaqaale iyo waxaa ka fakerina waa helaysaan laakiin markuu xaqu u caddaaday xaqaa waxay siisteen dhaqaale daaya naftooda waan idin layn buu ku yidhi markay yidhaahdeen ilaahay baan rumaynay waxay ugu jawaabeen faqdi ma anta qaad inamaa taqdi hadihi alxayaata addunya waxaad samayn karta samee bay yidhahdeen waxaad samaysaa waa inaad nadisho un soo maaha nicmada tan weynideeda markay dareemeen waxay oggolaadeen inay nafta siistaan naftu xataa hadday ka baxaysa inaanay marnaba nicmadaasi inay ku faraadaygaan oo aanay ka dhaqaaqin ilaahay qur-aanka qisasku ku tilmaamaya waxaa ka mid a qisadii asxaabulkahaf niman dhallinyaro ah oo boqorrada dhashoodiiya ama dabaqada sare ka dhashay oo islaamay oo dabeetana lagu dhibay islaamnimadoodii oo ka doortay qusuurtii lagu noolaa inay god ku noolaadaan min alqasr ila alkahf waxay doorteen inay boqorrada iyo dhulkay degan yihiin iyo nicmadan adduuniya waxaan oo dhan inay ka tanaasulaan waayo waxay rabaan nicmada iimaanka iyo islaamku inay u hadho sidaa awgeed bay waxay doorteen inay nolol god lagu nooliyay galaan god inay nolol weydiiyaan ama ay galaan waxaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya qisatu asxaabi alkhuduud dad dhan oo la xaaqay oo loo laayay diinta ma ka noqonaysaan oo ma yidhi dadkii diinta fahamsanaa ee garanayay nicmadani intay leegtahay waxay ahaayeen dadkii sidaa ugu mintidayay haddii aada hayso ama aada soo hesho diamondka waa taqaanin soo maaha almaas macdantan yare qaaliga ah haddaad diamond soo hesho xaggaad dhigi lahayd guriga fadhiga ma iska dhigi lahayd mise waxaad geyn lahayd meesha ugu sayfsan ay ku nabadgelayso waxaa laga yaabi lahaa xataa qasnada guriga kuu taalla inaanad ku aaminteen ead sodhan lahayd armaa loo dhacaa dabeetana bangiga iyo meelaha xoogga loo ilaaliyo inaad geysataabaa suurtagal ahayd waayo waxan baad qiimihiisa taqaanaa diamondkaad qiimaheeda taqaanaa sidaa awgeed ma rabtid inaad dayacdid dadkii diinta qiimaheeda yaqaanay saasay u ilaashanayeen oo nafyo wax walba u siisanayeen haddaad se garan weydo diamondka haddii lagu dhibaad quraarad yaruun moodo crystal yaroo cadaad moodo dee waxaa laga yaabaa inaad ama tuuri lahayd ama meelaha iska dhigi lahayd waayo waxaanad aqoonin waxaan inuu diamond yahay laakiin marka lagu yidhaahdo waa diamond baad kugu soo degi lahayd ilaalintiisu waxaan uga dan leeyahay waxa dadka agtooda qiimaha ku leh
bini aadamku wuu ilaaliyaa naf iyo maalba wuu geliyaa si kasta wuu xejin karo wuu xejiyaa dhulkan baad timaadeen dad idinka badan diimo kala haysta intee baynu ilaalinaynaa diinteenna intaynu u feejignay intee baad rabtaa ilmahaagu inuu islaamnimo ku dhinto Soomaalidu waxay ka fakartaa carruurtiiya waxa kan dhaqaale u sameeyo guriga u dhis waddankan ay joogtaan kuwa ugu timaadeen odayadii hore guriga uga tageen saaka la igu lahaa qaar guriga looga tagay la sheegayo waxa la yidhi maalintiina way seexdaan habeenkiina way qayalaan ama way soo jeedaan baa la yidhi dabeetana waxoogaa yaroo kiro oo ay guriga ka qaataan hadduu se qofkaasi ka tegi lahaa qof iimaan iyo diin leh wala waanu guri uga tageen wuu xoogsan lahaa ilmaha inaad guri uga tagto waxa ka qiimo badan inaad diin uga tagto inaad dhaqaale u samayso waxa uga qiimo badan inaad isaga qof ka dhigto jira oo nool oo muslima hadduu qof muslima noqdo oo naftiisa ku kalsoon meel uu seexdiyo wuxuu cuno isaga raadaysanaya adiga xilka ku saaranay kaama xilka ku saaranay waxa weeyaan fala tamutunna illa wa antum muslimuun ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa nabi ibraahim oo u dardaarmaya carruurtiisii islaamnimo nabi yacquub oo markuu geeriyoonaya u yeedhay oo ku yidhi maxaa caabudaysaan aniga dabaday oo ay u sheegeen ilaahaad adigu caabudaysay iyo abbayaashaaba ilaahay caabudayeen baanu haysanaynaa ambiyadu dardaarankay ka tegayeen wuxuu ahaa islaamnimo ku dhinta ma odhanin war xoolaha maxaa ka yeelaysaan reer kastaa u maamulaysaan daarihii sidaa odhan doontaan reerka ma ururin doontaan baabkaa uma bilaabin ee qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay inuu diin ka warramay haddaba hadday diintu agteenna qiimo ku leedahayna waxay noqonaysaa mid aynu ilaalinno mid aynu naf iyo maalba dul dhigno mid aynu dowrulcibaada meelahaynu ku cibaadaysanayna inagu lacagteenna gelinoo dhisno madaaristeenna inagu dhisanno nolosheenna ay ka mid noqoto aynu u fakarno haddiise diintu aanay qiimo lahayn waxay noqonaysaa si gaalku kuu qaado intaad meelahooda tagto inaad daforada usii xirxirato tira anigu diin shaqo kuma lihiye waxaan rabaa in yurub laygeeyo baabkaasi shaqo kuma lihiye way iyadaa kuugu qiimo yar iyadaa kuugu liidata galabta culamada idin wacdii doonta laakiin anigu waxaan idin xasuusinayaa oo keliya inaydan foqoro ahayn ee wixii dunida ugu qaalisanaa inay agtiina yaallo saxaabadii markii ay dunida ku faafeen bershiya markii dagaaladu ka socdeen xarbi alqaadisiya 30 kun oo muslimiina baa dagaal ku jiray iyo dad 200 oo kun ku dhadhow oo gaala ah dabeetana markii dambu ninkii gaalka ahaa meesha joogay wuxuu yidhi bal iigu yeedha nimankani waxay doonayaan 3 nin buu kolba mid yidhi halay soo diro waa loo diray wuxuu u weydiinayaa uu leeyahay warnimayo haddii meeshiinii dhulkiina waan ogo waa iska saxaariya meel qaraxee aan xoola idin siiya noqda xaggiinii ku laabta wuxuu weydiiyey maxaa idin soo bixiyay dhulkiina idinka keenay dee wuxuu isleeyahay waxay odhan doonaan xoolaanu doonaynaayo waa meel abaaraanu ka nimi waxay ugu jawaabeen ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaanu dadka ka saarro addoonsiga is addoonsadaan waanu u saarro ilaa cibaadati illaahi waxdah ilaahay inay addoommo u noqdaan cidhidhiga adduun inaanu ka saarno ballaca aakhiro u saarro diimaha kale cadaalad xumadooda inaanu ka kaxayno oo diinta islaam geyno idan waxay leeyihiin wixii ugu weynaa baanu haynaa nimanka caynkaa leh iyagoo dhowr bilood dagaal ku soo jiray ayuu ninkani wuxuu rabay inuu hankooda jabiyo dabeetana kaarbadka cas baa la dhigay sariirtii boqorkana waa loo dhigay nin ka mid ah soo socdayoo wuxuu la soo dul maray faraskiisii yaraaya gaabnaa meesha korkeedii dabeetana barkimooyinku meesha dhigay buu xadhigga ugu xidhay faraska wuu soo dhaqaaqo waxay dhahdeen hubka boqorka loolama tago idinkaa ii yeedhay buu yidhi haddaydan rabin waan iska noqon doonaa yacni kaana yactazu binafsi inuu isagu muslimiyey
ustaad alcaalam inuu yahay waxyigii ugu dambeeyay samada ka yimi inuu sido ayuu isu arkayay ma uu arkay boqorkan iyo qadifadiisa cascasi wax qiimaa inay leedahay saddexdan nin ka midna siduu soo socday ayuu de boqorka hortiisa la fadhiistay oo laga hadlaayay sariirta boqorka dhinaceeda kale isna fuula markaasaa la qabqabto la soo tuuray soo yidhi maan moodaynin in addoomaysu tihiin waxaan idin moodayay dad siman oo dee diin haysta ee in badhna rabbiya sheeganayaan badhna dhulka la dhigayo maan moodayn idan waxay arkayeen dadkaasi diintu inay tahay wixii ugu qaalisanaayoo iyagu sitaan laakiin xoole may wadanin waxba may wadanin waxaan filayaa ibnu jariir الطabari wuxuu tilmaamaa madaa'in maalintay furteen muslimiintu markay madaa'in furteen caasimadii meesha waxyaabihii la helay waxaa ka mid ahaa khubs yar oo si yaroo khafiifa loo sameeyey dabeetana manaadiil bay moodeen ragga badh ka madiyo faraha iska mariyeen baa la yidhi yacni xadaare halkaasi ka joogeen inay faraha iska mariyaan cunno wax loogu talagalay laakiin haddana waxay ahaayeen dadkaa rumaysan waxyigii ugu dambeeyey ee ilaahay xaggiisa ka yimaada inay xambaarsan yihiin aniga markaa weedhaydu waxay tahay war foqoro ma tihidin foqoro ma tihidin diintii rabbaa aaminsantiinoo sidaan dadkaa u timaadeen baa foqoro ah oo diin la dadkaa u timaadeen baa caydh ah oon waxba haysanin dadkaa u timaadeen baa aakhire moog idinkuna habbi'ina oo diintiinu yay xumaanina ilaashada oo garta wixii ugu qaalisanaa inaa haysataan dee dadkana gaadhsiiya xil baa idinka saarane وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين